بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاذ جوجتان الله ودنا دمانتين وحين كودا برينا إنه نقود بدباديو عذرك سفرانكا يا كورونا فيروس كي عذرنا كلابا قبي لباتنكا بشهر ديسمبر لبدا كوني لباتنكا وانا مالين سنينة ملك استو aan joognaba allah awood leh ayaan markaa la baryaynaa maadaama cudurka coronavirus uu yahay mid saameyn ku yeeshay guud ahaan dunida dhinaca kalena isla viruskii lamida laga arkaya meelaha qaar taasoo cabsi weyn ku abuurtay guud ahaanba bulshada laakiin dhakhaatiirtu ay leeyihiin isku tallaal ayaa wax ka tari karaya oo sidaa kuma kala duwanaa markaynu haddaba fiirino UK oo ka mid ah wadamada reer Yurub juqraafi ahaan ku yaala laakiin midowga Yurub ka baxay ayaa waxaa sabtidii oo ra'iisul wasaare Boris Johnson sheegay in la ballaariyo guud ahaanba marka la fiiriyo feejignaanta oo heerkii afraad la gaarsiiyay kadib markii la arkay inuu aad u batay viruska iyo weliba nooc isla coronaviruska ah laakiin aan ka fogeyn taasoo la sheegay inuu ka dhibaato badsanayo marka la fiiriyo xagga faafitaanka uu faafayo laakiin dhinaca dhimashada aanu kii la mid ahayn oo markaa ka yaraan karo arrintan iyada waxay keentay meelo badan in wax laga qabto oo UK awaamirna ay soo baxdo iyadoo markaasina laga laabtay guud ahaan dabcintii la dabcinayay xilliga Christmaska dadku inay isu tagaan oo ay markaa wada ciidaan taasoo la sheegay qaabkii markii hore ay qorshaysteen guud ahaanba afarta qaybood oo ay ka kooban tahay UK in markaas dib loogu laabto mar haddii la arkay isbeddelka dhinaca coronaviruska iyo arrimahan kale ee cusub marka la fiiriyo viruskan isaga ahi ma aha mid ka bedelnaan kara coronaviruska laakiin waxa uu yahay mid qoliyaha caafimaadka saynisaanadu ay ku sheegeen in markiiba tallaalka la soo saaray ee shirkadaha kala duwan isku si qofka marka loo tallaalo isku si uga ilaalin karo isu gudbintana markaa uu ka joojin karayo haddaba digniintan iyadaa markii ka soo baxday UK wadamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa qaatay tallaabooyin ah inay joojiyaan dhammaan duulimadyada diyuuradaha ee ka tegay UK ee aadaya wadamadooda waxaa ka mid ah wadanka Netherlands iyo wadanka Belgium oo iyagu ka dhawaajiyay iyadoo weliba dhinaca kalena wadamo kale oo ay ka mid yihiin Talyaaniga wasiirkooda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Luigi Di Maio in isaga laftiisa uu sheegay in tallaabo laga qaadanayo laga fiirsanayo dawladuna ay go'aan gaarayso wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Spain ayaa isaguna sheegay in reer Spain ay la kaashanayaan wadamada kale ee reer Yurub arrinka ku saabsan joojinta la joojinayo duulimadyada ka imanaya UK mar haddii arrimaha laga arkay waxa kaloo iyaguna hadlay Faransiiska oo sheegay sidoo kale inay ka fiirsanayeen inay tallaabo qaataan ku saabsan arrintaas laakiin wadanka Bulgaria diyuuradaha ka imanaya iyo kuwa aadaya UK gabi ahaanba waa ay joojiyeen marka la fiiriyo go'aanna waa ay gaareen Australia sidoo kale waxa ay ku hamisay in iyaduna ay ka fiirsatay tallaabada la qaadanayo oo kale iyadoo la arkayo markaas xaalku inaanu qumanayn arrinkaasi oo kala oo aan badnayn ayaa laga arkay dhinaca Netherlands iyo weliba dhinaca Denmark oo ah viruskan laftiisa oo wax yar uu ka bedelan yahay laakiin ay sheegeen xagga dhimashada inaanu kan la mid ahayn dhinaca kale faafitaankiisu laakiin uu badan yahay oo 70% si aad dadku ay isugu gudbin karaan marka la fiiriyo cudurka coronaviruska marka daba la fiiriyo guud ahaan reer Yurub waxa ka jira nidaamyo ay soo saareen oo ah inay xanibayaan dadkooda ciidda Christmaska inaanay isu soo bixin taasoo la arkay dhibaato xoog leh in laga arkay markii la tukaamaysanayay ciidda Christmaska iyo weliba sanadka cusub oo wadamo Talyaaniga iyo Jarmalka ay ka mid yihiin ay aad iyo aad u sheegeen go'aamo kala duwan ay soo saareen sida UK iyadoo weliba dalalka kale ee reer Yurubna sidoo kale ay go'aamo kala duwan soo saareen mar haddii la arkay virusku inuu carcarsan yahay aad iyo aadna xawli u socdo guud ahaan reer Yurub waa meelaha ugu badsaday mowjadda labaad ee cudurka coronavirus oo loo arkay inay tahay mid aad uga xoog badan mowjaddii koobaad xagga faafitaanka iyo ku dhicidda dadka soo ridashada iyo weliba xagga dhimashada mar haddii tiro badan uu soo ridanayo inay dhacayso tiro kaloo badanina markaasi inay dhimato ama ay geeriyooto marka la fiiriyo wadanka Mareykanka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa maalinka maanta oo Isniina waxa uu noqonayaa inuu qaato talaalkii cudurka coronaviruska isagoo tusaale u noqonaya guud ahaanba bulshada dooratay ee Mareykanka Joe Biden waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay inaan muujiyo inaan soo dhaweynayo ogolaanshaha la ogolaaday shirkadda lagu magacaabo Moderna talaalkeeda oo markaa noqonaysa shirkaddii labaad marka laga bilaabo Pfizer iyo BioNTech oo la doonayo guud ahaanba dadka Ameerikaanka in laga talaalo cudurka coronaviruska Joe Biden horey waxa uu toddobaadyo ka hor uga codsaday bulshada Mareykanku sankii afka inay xirtaan 100 maalmood isla markaasina waxa uu sheegay maalintuu kursiga ku fadhiistay la dhaariyo 20 bisha January 2021 marka laga bilaabo 100 maalmood oo ku xigta ilaa iyo dad aad u fara badan oo Mareykana inay noqon doonaan oo ilaa 100 milyan in markaas cudurkii laga talaalay dhinaca kale wadanka Mareykanka waxa horey loo talaalay madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka Mike Pence oo noqday shakhsigii ugu sarreeyay siyaasiyiinta wadanka Mareykanka oo muujiyay in bulshada horteeda telefishinka laga dheeday iyadoo la talaalayo dhinaca kale waxa isaguna raali gelin bixiyay janan lagu magacaabo Gustav Berna oo isagu ahaa jananka loo xil saaray ama qaabilsanaa daabulida iyo qaadista talaalada kala duwan ee loo
daabulayo guud ahaanba kontonka gobol ee waddanka maraykanka. waxaa dhacday gobollada qaar ballanqaadyadii doosaskii laga ballan qaaday ee la geyn lahaa inaan la geyn oo kuwo ka yar la geeya, taasina ay keentay khalad inuu dhaco. kadibna jaranku uu soo hor istaago warbaahinta maraykanka iyo adduunka oo uu yidhaahdo anigoo ah generaal berna aad ayaan uga xumahay qaladka aan galay, mas-uuliyaddeedana aniga ayaa qaadanaya, laakiin waxa uu noqonayaa qalad la saxo oo markaasi ay noqonayso doosaska loogu talagalay guud ahaanba gobollada maraykanka in la geeyo. dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo kuwa kale ee guryaha waayeelka lagu hayo muddo dheer lagu hayo ku jira ayaa lagu bilaabayaa. kadibna gobollada maraykanka guddoomiyayaashooda iyo maamulayaashooda ayaa eegaya qaabka iyo sida dadku ay u kala daran yihiin ee tallaalka maraykanka markaasi loo gaarsiinayo. guud ahaan waddanka maraykanka dadka cudurka uu soo ritay 18 milyuun ayay madaxa la galeen, dadka cudurka uga dhintana 318 kun ayay maraykanka madaxa la galeen. ugu dambaystii madaxweynihii hore ee waddankaasi Burundi oo lagu magacaabi jiray Pierre Buyoya oo 71 jir ah ayaa waxa uu ku geeriyooday maalintii Khamiistii magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska isagoo u dhintay cudurka coronavirus-ka. ninkaas Pierre Buyoya waxa uu ka noqday 2 jeer madaxweyne dalka Burundi, taasoo isku darkii dhowr iyo 10 sano uu ka ahaa madaxweyne, iyadoo aakhritaankii isagoo maqan maxkamada ay ku xukuntay magaalada Bujumbura in loo haystay dembi ah in uu dilay amaba uu ka dambeeyay dilka madaxweynihii ugu horreeyay si dimuqraadiga dalka Burundi looga doorto oo lagu magacaabi jiray Ndadaye. laakiin madaxweynahaas hore ee geeriyooday ee dalka Burundi Pierre Buyoya waxa uu sheegay eedda loo soo jeediyay haba yaraatee inaanu wax shaqo ku lahayn oo uu iska fogeeyay. waxa uu intii dambe ahaa ergeyga midowga Afrika ugu qaabilsan dhulka lagu magacaabo Saaxil, laakiin dhowaan ayuu jagada baneeyo ka cudur daartay isagoo qiil uga dhigay inuu doonayo magaciisa inuu nadiifiyo mar haddii magaciisa la madoobeynayo waddankaasi uu markaasi madaxda ka ahaa maamulayaashiisa ee Burundi ay magaciisa ku ciyaarayaan oo uu doonayo magaciisa inuu ka dhigo magac fiican si uu adduunka magac ugu yeesho. aakhritaankii cudurka coronavirus-ka ayaa waxa uu ku dilay magaalada Paris Khamiistii Pierre Buyoya oo ahaa 71 jir ahna madaxweynihii hore ee waddankaasi Burundi. haddii la fiiriyo guud ahaanba adduunyada calaacal xoog leh iyo walbahaar ayaa ka jira, iyadoo weliba si aad iyo aad dadku ay u feejigan yihiin, lana arkayo meelaha qaar in fayraskii laftiisii waa koronihii uu qaab kale isu bedelayo oo uu si xawliya ku socdo xagga isqaadsiinta. laakiin waxa ay filayaan qoryaha saynisyahanada iyo caafimaadku in uu noqon doono mid laga adkaado, isla mar ahaantaasina tallaalada kala duwan ee la oggolaaday la soo saaray ay noqonayaan marka dadka la tallaalo in guud ahaanba fayraskaasi koronaha ay wax ka qaban doonaan. balse looba jooge xaalku sida uu noqdo iyo guud ahaanba dunida walaaca xoog gale iyo culayska saaraa muddada sanadka ah bal inuu ka dego iyo in kale. marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronavirus-ka waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK. xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton, halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan laysaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba. ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan, waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528277. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida, waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada eebada ay badiyaan, nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan, iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano, baryada eebba aan badino, nadaafadana aan ku dadaalno. maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus-ka oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadano ka hortagga coronavirus. maasha Allah.